madaxweynaha wadanka Mareykanka ayaa Congress-ka ku wargeliyay in la dhameeyo dagaalkii wadanka Iran lagu qaaday kadib fariin qoraal ah uu xalay u diray gudaha Congress-ka iyadoo dhinacyada kala duwan hadda ay bilaabeen in si weyn loo falanqeeyo. Arrintan Trump waxay ku soo aadaysaa iyadoo aan wali heshiis buuxa la gaarin dowladda Iran xalayna uu saluugay hadalka ka soo baxay dowladdaasi. Trump uu ku tilmaamay inuu san qaado karin waa Iran. dowladda Iran ayaa lagu bilaabay in lagu qaado weerar dhinaca fikirka iyadoo warbaahin u ololeysa mucaaradka laga hirgeliyo dibadda bilaabeenna in ay tabiyaan warar kala duwan oo gudaha Iran ku saabsan. maxaa ka jira wararka tilmaamaya in Abbas Araghchi xilka laga qaadayo isla markaana ay hayaan militariga iyo saraakiisha rayidka ah oo ay Qalibaaf iyo Pezeshkian ka mid yihiin. warar kala duwan ayaa soo baxaya oo tilmaamaya dowladda Iran inay markaan qaadayso tallaabo ka careysiinaysa wadamo fara badan oo ku yaala qaaradda Aasiya iyo gobolka Bariga Dhexe iyadoo internetka iyo isgaarsiinta ka goyn doonto wadamo fara badan iyadoo aan wax weerar qaadin. maxay tahay tallaabada farsamo ee dowladda Iran ay qaadayso xitaa walaaca gelinaya dowladda Mareykanka? taliyaha ciidamada militariga ah ee nidaamka Israa'iilna waxa uu ballan qaaday in uu ballaarin doono weerarka ka dhanka dowladda Lebanon saacadaha in soo aadan xilli uu fashilmay wada hadalkii u dhaxeeya dowladda Beirut iyo nidaamka Tel Aviv. ikhtiyaarta inala socotay subaxnimadan saaka oo qodobadaas ayaan ku faaqidayaa barnaamijka soo dhawaada meel kasta oo aad joogtaan. ma ogtahay in dhakhtar Shaafici aadan dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka. maalin waliba wuxuu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa xalay fariin qoraal u diray aqalka Congress-ka ee wadanka Mareykanka waxaana uu ku wargeliyay guud ahaanba dagaalkii lagula jiray dowladda Iran in la soo gabagabeeyay. arrintan ayaa waxay daba socotay kadib markii qaar ka mid ah khubaradu ay soo bandhigeen in loo baahan yahay in madaxweynaha iyo waliba maamulkiisu ay hor yimaadaan aqalka Congress-ka si su'aalo looga weydiiyo dagaalka haddii ay suuragal tahayna loo dheereeyo. World Power Resolution Pact sharciga loo yaqaano ayaa Trump xadidaya wax ka badan 60 maalin isagoo aan fasax Congress-ka haysan in uu dagaalkan sii ballaariyo. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa si rasmi ah ku wargeliyay Congress-ka in howlgalka militariga ee ka dhanka dalka Iran uu soo dhamaaday sida uu sheegay warbixin lagu daabacay warbaahinta The Politico. sida ay wararku sheegayaan Trump ayaa fariin rasmi ah u diray Congress-ka ka hor dhamaadka waqtiga sharciyadeed ee dagaalada ay soconayeen. madaxweynaha ayaa sheegay in ciidanku uu adeegsaday muddo xadidan iyadoo aan ogolaanaysa baa la yiri rasmi ah in ay adeegsan karaan sharciyada Congress-ka intaanu bixin inta awoodda madaxweynaha ku siman. aqalka cad ayaa warqadaasi ku sharaxay baa la yiri howlgalka militari ee Iran ee hadda soo dhamaaday taasi oo maamulka Trump uu adeegsaday sababo sharciyeed si looga fogaado iska horimaad siyaasadeed oo sii xoogaysanayay gudaha Congress-ka halkaasi oo xubno badan ay dalbanayeen in maamulka cadeeya baa la yiri saldhig sharci ee howlgallada. warqadda aqalka cad ayaa sidoo kale loo arkaa isku day lagu yareynayo muranka siyaasadeed ee ka dhashay howlgallada militari ee dhawaan lagu qaaday bartilmaameedyo la xiriira Iran kuwaasi oo sare u qaaday cabsi laga qabo dagaalka inuu ku sii ballaarto gobolka Bariga Dhexe. inkasta oo Trump uu sheegay in dagaalku uu soo dhamaaday haddana xiisadda gobolka ayaa wali ah mid xasaasi ah iyadoo xabad joojinta Iran iyo Mareykanka lagu tilmaamay mid aad u jilicsan. isla markaana xalay Trump uu ku dhawaaqay in dowladda Iran soo jeedinta ay soo jeedisay ay tahay mid aan la aqbali karin uu aad uga ganacsan yahay. waxay sidoo kale tallaabadan ku soo aadaysaa iyadoo dalka Iran uu wali ku jiro go'doon dhinaca badda ah oo saameyn weyn oo dhaqaale ku yeelatay. dowladda Iran waxaa la bilaabay in lagu qaado dagaal dhinaca afkaarta iyadoo qaar ka mid ah mucaaradka taageerada ka helaya wadamada kala duwan ee Carabta iyo kuwa reer galbeedku ay bilaabeen inay adeegsadaan warbaahin caalami ah oo ay hawada soo galiyeen. warbaahintaas ayaa soo tabinaysa xogo gudaha ku jira oo dhinaca mucaaradku ay soo dusinayaan hase ahaatee ay xaganayaan qaar ka mid ah warbaahinta Imaaraadka. xogtii ugu dambeysay ee galgasha xalay gobolka Bariga Dhexe waxaa ka mid ahayd markii telefishin mucaaradku ay hirgeliyeen Imaaraad dowladda Iran uu ku dhawaaqay in
khilaafaad xoogan oo mucaaradka iyo saraakiisha rayidka ee dowladda islaamiga u dhaxeeya uu sababay in laga shakisan yahay in xilka laga qaadayo maalmaha soo socda wasiirka amuuraha dibadda Cabbaas Caraaqshi oo u dhagan nuglaaday amarka saraakiisha sare ee militariga taasoo si weyn ay uga caroodeen baa la yiri madaxweynaha wadankaasi iyo waliba afhayeenka baarlamaanka. sida uu xiganaya telefishinka Sky News ee laga leeyahay dowladda isutaga Imaaraadka Carabta warar ay baahiyeen warbaahinta mucaaradka ah ee Iran ayaa sheegaya in madaxweynaha Iran Mas'uud Pezeshkian iyo gudoomiyaha baarlamaanka Mohamed Baqir Qalibaf ay wadaan qorshe lagu doonayo in xilka looga qaado wasiirka amuuraha dibadda Cabbaas Caraaqshi kadib eedeymo la xiriira in uu si weyn u hoggaamsaday awaamiirta taliska militariga gaar ahaan taliyaha guud ee ilaalada kacaanka Ahmed Fahadi. sida uu sheegay telefishinka Iran International oo soo tabinaya oo wararka ka soo tabiya dibadda laba ilo wareed oo xog ogaal ah ayaa sheegaya baa la yiri in Pezeshkian iyo Qalibaf ay aaminsan yihiin in Caraaqshi uusan u qabin baa la yiri u dhaqmin baa la yiri sidii wasiir ka tirsan xukuumadda balse uu noqday qof toos uga amar qaata Ahmed Fahadi inta lagu guda jiray wada hadallada Iran iyo Mareykanka sida ay warbaahintaasi mucaaradkii ay tabinayaan. wararku waxay tilmaamayaan in Caraaqshi uu toddobaadkii la soo dhaafay la macaamilay Washington isagoo aan madaxweynaha si buuxda uga codsan ama ula socodsiin isla markaana uu si dhow ula shaqeeyo Fahadi taasi oo muujisay baa la yiri khilaaf xoogan oo u dhaxeeya garabka siyaasadda iyo kan militariga ee gudaha nidaamka Iran. ila wareetada waxay intaasi ku darayaan in Pezeshkian uu si aad uga carooday habdhaqanka wasiirka isla markaana uu sheegay inuu ku dhow yahay inuu xilka ka qaadi doono haddii sidan ay ku sii socoto xaaladda. khilaafka ayaa ku soo beegmaya xilli gudaha Iran ay ku jiraan kala qaybsanaan xoogan sida dowladda Mareykanka ay dhowr jeer soo jeedisay isla markaana warbaahinta qaarkood sida kuwa Iran ay bilaabeen inay xigtaan. dhinaca kale wargeyska The New York Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa horey u qoray in ilaalada kacaanka iyo xulufadoodu ay si weyn gacanta ugu hayaan go'aanada waaweyn ee amniga dagaalka iyo diblomaasiyadda Iran iyagoo ka faa'iideysanaya hoos u dhaca ka jira hoggaanka sare ee wadanka. Mareykanka ayaa sidoo kale qiray jiritaanka khilaafka gudaha iyadoo wasiirka amuuraha dibadda Mareykanka Marco Rubio oo dhawaan sheegay in kala qaybsanaanta hoggaanka Iran ay tahay caqabada ugu weyn ee hortaagan heshiis hadda in la gaaro. falcelinta gudaha ayaa muujinaysa khilaafka u dhaxeeya siyaasiyiinta iyo militariga ayay dowladda Mareykanku ku sheegeen dhowr jeer oo warbaahinta la hadleen. inkastoo hadallada mucaaradka iyo Mareykanku ay u muuqdaan inay dhinac u wada heesayaan haddana ma jirto il rasmi ah oo cadeynaysa dowladda Iran inuu wax khilaafa gudaheeda ka jiro taasi oo muujinaysa in dagaalka ay si weyn difaac u sameeyeen. waxaana dadka qaar ay shaki gelinayaan wararka mucaaradka ka soo baxaya inay yihiin weerar dadban oo la mid ah kii dagaalka gantaalaha iyo duqeyntii lagu sameeyo gudaha wadankaasi. dowladda Iran ayaa ka fiirsanaysa xeelad la yaab leh oo saameyn karaysa dhaqaalaha adduunka iyo wadamo fara badan oo gacan saar la leh dowladda Mareykanka haddii Trump uu dhibaatooyinka cunaqabataynta ee wadankaasi uu ku hayo uu ku sii wado. dowladda Iran ayaa sidoo kale la sheegay in maraakiib gaar ah ula shaqeeya ay ka baxsadeen xayndaabka cadaadinta kadib markii ay isticmaaleen farsamooyin kala duwan taas oo ku adkeynaysa baa la leeyahay in Washington ay si buuxda gacanta ugu sii hayso deegaanada cadaadiska ay ku hayaan ee dhinaca badda. warar cusub ayaa sheegaya in Iran ay qiimeynayso adeegsiga baa la yiri habab cusub oo la yaab leh kaas oo saameyn ku yeelan kara xaaladda dhaqaalaha ee gobolka Bariga Dhexe. xeelada military oo aan horey loo arag ayaa waxa ay noqonayaan kuwa u jawaabaya cadaadiska Mareykanka iyo xanibaadda saaran dalkaasi ee dhoofinta shidaalka kuwaas oo Tehran ay u aragto falal dagaal oo si toos ah loogu soo qaaday. sida uu daabacay wargeyska Mareykanka ee Wall Street Journal saraakiil u dhashay dalka Iran ayaa sheegay in haddii xiisadda military ay dib u qaraxdo ay Iran isticmaali doonto hub iyo farsamooyin cusub oo lagu bartilmaameedsanayo maraakiibta dagaalka ee Mareykanka ee ku sugan gacanka dowladda Iran cadaadiska xoogan ku hayo. warbixintu waxay xusteen qorshayaasha la tixgelinaya ay ka mid yihiin adeegsiga bahalka loo yaqaano dolphinka oo la tababaray
inuu howlgallo military fuliyo taasi oo dowladda Iran ay samaysay. Dolphinka waa baahalka ay Soomaalida ama kalluunka ay Soomaalida u taqaan badbaadisada, kuwaasi oo ka qayb qaada hombira ay u yaqaanaan sidoo kale, kuwaasi oo lagu qalabayn karo baa la yiri walxaaq qarxa ama miinooyin si loogu adeegsado howlgallo badda ah oo ka dhaca marinka Hormuz ama arrimo muhiim u ah ganacsiga shidaalka caalamka. sidoo kale ila wareedyo ayaa sheegaysa in Iran ay taxgelinayso dirista gujisyo si ay cadaadis u saarto marinka isla markaana ay saameyn ugu yeelato dowladaha waaweyn qaarkood. arrinta kale ee xiisaha leh waxaa ka mid ah in heshiiska xabad joojinta ee jilicsan ee Iran uu sababi karayo in xiisada gobolka bariga dhexe ay noqoto mid sii ballaarata oo saameyn weyn ku yeelata guud ahaanba dhinacyada isku haya gobolka bariga dhexe. dhinaca kale dowladda Iran ayaa lagu soo waramayaa inay markan u diyaarsan tahay in ay internetka ka goyso iyo adeegyada isgaarsiinta iyadoo habab la yaab la adeegsanayso dhowr wadan oo ka mid ah kuwa ku yaala qaliishka iyo qaaradda Aasiya qaarkood. Iran ayaa wajahaysa cadaadis dhaqaale iyo mid military oo sii xoogaysanaya, waxaana wargeyska The Wall Street Journal uu sheegayaa dowladda Iran in ay adeegsanaysay maraakiib loo yaqaan kuwa hooska oo ka dhuumanaya raadeerada Mareykanka iyo waliba cadaadiska maraakiibtiisa ay ku hayaan, kuwaas oo dansanaya baa la yiri qalabka isgaarsiinta. dowladda Washington ayaa isku dayda arrintaasi inay si weyn uga hortagto, hase ahaatee waxaa suuragal noqon waayo guud ahaanba arrimahaas inay shaqeeyaan. dhinaca kale dowladda Iran ayaa markan ka fakaraysa in ay jirto keebalada badda gunteeda yaala oo ay internet ahaan u adeegsadaan qaar ka mid ah dalalka qaliishka oo Mareykanku lacago fara badan ku maalgeliyeen shirkadaheeda, gaar ahaan kuwa tiknoolajiyada iyo sidoo kale dowladaha ku yaala gobolka oo saameyn ay ku yeelanaysa dalka Iran. arrintan haddii ay dhacdo waxay noqonaysaa mid saameyn weyn oo dhaqaalaha ay ku yeelan karayso. warbixinta sidoo kale waxay isku dayday in wadooyinka ay Iran ku dhoofiso badeecadaheedu ay badan yihiin, sida iyadoo maalmihii ugu dambeysay adeegsanaysa tareeno iyo wadooyin dhulka ah oo dhinaca Shiinaha, Pakistan iyo dalalka kale ee ku yaala gobolka sida ay tilmaameen. arrintan qubarada militarigu waxay ku tilmaamayaan inay tahay mid dowladda Iran kor u sii qaadaysa awoodeeda, hase ahaatee Mareykanku uu la kulmi karo cadaadis kale oo dheeraada oo dowladda Iran dhaqaalaheeda aanu ku xakameyn karin. Israa'iilna waxay ku waramaysaa inay kor u qaadayso weerarada ka dhanka dalka Lebanon maalmaha soo socda sida ay qubarada tilmaamayaan. taliyaha guud ee ciidanka Israa'iil Eyal Zamir ayaa amar ku bixiyay in la ballaariyo weerarada cirka ah ee ka socda Lebanon iyadoo la bartilmaameedyo cusub laga dhigayo xarumaha iyo shabakadaha la xiriira soo saarista iyo gudbinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn baa la yiri nidaamkaasi lagu weeraro. sida uu qoray wargeys Israa'iili ah, Eyal Zamir ayaa faray baa la yiri taliska gobolka waqooyi iyo ciidamada Israa'iil in la beegsado silsilada wax soo saarka iyo sahayda diyaaradaha qaraxyada sida iyo kuwa lagu bartilmaameedsanayo gudaha dhulka Falastiiniyiinta laga haysto ee gacanta Israa'iil ku jira. go'aankan cusub ayaa waxa uu ka dhigan yahay in ciidanka cirka Israa'iil ay hadda awood u leeyihiin inay weerar ka fuliyaan meelo ka fog koonfurta Lebanon, xitaa waqooyiga iyo bartamaha dalkaasi, halkaas oo Israa'iil ay si joogto ah u duqeyn karayso. waxaana arrintan ay ku soo aadaysaa xilli xiisada gobolka bariga dhexe ay faraha ka sii baxayso, isla markaana aanu cadayn mowqifka dagaalkaasi lagu soo ebyi karo ee dalkaasi Lebanon ka soconaya.